Todobaadkaan ayaa ahaa kii ugu murugada iyo mugdiga badnaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalka Koofur Afrika tan iyo intii uu bilaawday sanadka cusub 2011 kadib markii uu sii kordhay dilalka loo geeysanjiray Soomaalida ganacsatada ah ee ku sugan wadankan Koofur Afrika iyadoo maalmihii la soo dhaafay la dilay dad tiradoodu gaarayso 4 qofood halka tiro inta ka badan la dhaawacay oo haatan lagu daaweynayo hospitaalka weyn ee Tegabeg. Dalkan ayaa ka kala dhacay tuulooyinka ay Soomaalida ka ganacsato sida Khalisha Delft oo intaba ah deegaano ku hareeraysan magaalada Cape Town. Idris Omar Amiir oo ahaa marxuumkii ugu dambeeyay ee lagu toogtay dukaankiisa isla markaana isagoo dhaawaca dab la qabadsiiyay dukaankii uu ku dhex jiray halkaas oo uu ku geeriyooday Allaha u naxariistay marxuum Idris Omar Amiir. muddo daqiiqado yar kadib waxaa goobtii soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska South Africa oo sheegay in ay jireen cid ay u soo qabteen arintaasi balse waxa ay intaa ku dareen in ay baaritaano ka wadaan goobta uu falkaasi ka dhacay oo isla markiiba ay ku xireen qalabka wax lagu baaro. marxuumka ayaa galinkii dambe ee shalay waxaa lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee Kuruj iyadoo aaskiisa ay ka qayb qaateen qaar ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Cape Town. markii uu dhamaaday aaska waxaa goobta hadallo kooban oo wacyigelin ka soo jeediyay Sheekh Ahmed Maxamed Xuseen Bahjuddin oo kamid ah guddiga dacwada ee Albayaan. waxa kale oo jiraado ogtihiin inuu nabigu noo sheegay calayhi salaatu salaam yatba'u dhulmiyita thalath qofka hadduu dhinto saddex qolaa soo raacda saddex yani arrimood baa soo raaca laba waa noqdaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam midna baaqi buu noqdaa labada noqdo waa ogtihiin waa annaga u dambeeyna iyo maxaa la wixii xoolo oo lahaa oo laga yaabo shalay iyo daraadii in barnaamijkoodii dhamaadeen markii ay geeridu ku timid Ilaahay u naxariisto subhanahu wa ta'ala dadkii ehelkana annaga u dambeeyna waan tagaynaa waxa soo haray oo rasmiga muxuu yahay amalkii weeyaan amalkaasi markaa walaalkeen hadda waqtigiisu u dhamaaday waana ka go'ay wixii uu shaqeey uu qaban lahaa jaanisna ma uu hayo laakiin annaga ay arintu inagu dhacaysaa كفى بالموت واعدا geeridu iyada waana ku filan bay yiraahdaan culimadu inuu qofku dhimasho arko iyada waana Soomaali waxa u maleynaya yani arintaas iyadii Soomaaliya markii la joogayna si fiican baa loo arko waxa in la keenay geeri aan ka soo caradnay iyo dhibaato dhicitaankeedii iyo mashaakilkeed darteed yaan meeshan iyada la nimid haddaan meeshan nimidna ciqaab ay daba socoto wixii aan sameynay acmaalaha yalla inagu ciqaabaya dhib wali in daba socda marka aan isdaba qabateen. arrintan dilalka ah ee baryahan dambe soo xoogeystay ayaa waxaa walwal ballaaran ka muujiyay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Koofur Afrika iyaga oo dawladda ka codsaday in ay xil iska saarto sidii looga hortagi lahaa dilalka foosha xun ee lagu la kaco dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan wadankan Koofur Afrika. South Africa waxay ka mid tahay wadamada adduunka ugu dilalka iyo dhaca badan marka laga reebo wadamada ku jira xaaladaha dagaal sida Soomaaliya oo kale. waa muwaadinkii lixaad ee Soomaaliyeed ee sanadkan 2011 lagu dilo dalkan Koofur Afrika iyadoo bilihii la soo dhaafayna uu hoos u dhacay dilalka joogtada ah ee loo geysan jiray dadka Soomaalida qaxootiga ku ah guud ahaan wadankan Koofur Afrika. Abdikarim Mursal Farah, Universal TV, Cape Town.